Wayn salaam dhamaan asxaabta soo dhawaada channelka aad daawanaysaan waa Somai Teach. Haddii ay tahay boqoshada ugu horeysa halkan fadlan subscribe sa channelka. Okay asxaabta muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay Facebook dark mode. Sida ogtiin Facebook inta badan waa isticmaalnaa waa adeegsanaa. Marka waxaan u baahanahay inaan ka dhigno Facebookeena dark mode. Haddaba sideen u dhigaynaa? Marka waxaan rabaa qaabka ugu dhigi lahayd inaan idin tuso daawasho wacan. Okay hada Facebook ayaan soo kicinaynaa. Sidaad u jeedaan Facebookeena waa white waa cadaan. Marka qaabka aan u dhigi lahayn madow ayaan rabnaa. Marka waxaa sameynaysaa horta kow mobilkaaga waa inaad fiirisaa versionka uu yahay ma Android 9 ma Android 10 horta waa inaad ogaataa mobilkaaga wuxuu yahay. Ani hadda mobilkayga ayaan tusinayaa versionka uu yahay. Setting gal kadib about kadib waxaa sii tagtaa software information kadib Android version taabo klik si sidaad u jeedaa aniga mobilkayga waa Android 10. Haddaba adeegan Facebook dark mode adoon application midna aad la soo degin ayaad waxa ka dhigaysaa dark mode. Waa haddii uu yahay mobilkaaga Android 10. Android 9 weli ma soo bixin. Dadkan waxa laga yaabaa inta badan inay wataan Android 9. Marka qofkii wato Android 10 adeegan wuu heli karaa asoon wax application uu la soo degin. Okay maxaa u baahanta marka sameynaysaa? Kaliya waxa sameynaysaa kalaabo. Kaliya waxa sameynaysaa settingka mobilkaaga ayaa soo kicinaysaa. Setting marka gasho kadib waxa tagaysaa about ayaa tagaysaa. About marka tagto kadib waxa ka sii tagaysaa software information. Software information marka taawato kadib waxa dooranaysaa bill number meesha ku qoran tahay ayaad dhowr jeer ku celinaysaa. Ma fahantay? Dhowr jeer ayaa ku celinaysaa. Hadda tusaalahan waa kan aniga mobilkayga waan ku celiyay kadib binka igu weydiiyay. Marka dhowr jeer ku celcelisid kadib waxa sameynaysaa binkaaga gali ka bacdi back ayaa leedahay waa iskaga laabanaysaa marka. Back kadib waxa sameynaysaa about ka hoostiisa waxa soo galay hadda oo aad aragtaan developer options meesha ku qoran tahay awalna adeegan noogu ma jirin. Okay asaga ayaa ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato qaab noocan ayuu kugu soo baxayaa. Marka anaga adeegan u baahanahay ayaan idin tusinaa marka. Hoos ayaa u baxaysaa. Hoos u bax soconayna. Okay anaga adeegan u baahanahay waxa la magaciisa force dark mode ayaa lahaa. Waana kana oo hadda waan calaamaday. Marka meeshan yar ayaa tig saaraysaa. Tig ma saarti kadib waab iskaga bixisa asagoo dhan. Waa iskaga bixaysaa. Markaad ka baxdo kadib waxa sameynaysaa Facebookkaaga ayaa soo kicinaysaa. Hadda ani Facebookkayga waa kana waan ku dhufanayaa. Hadda waxa u jeedaan in wixii oo dhan isbedeleen ay madow noqdeen. Adigoon wax application la soo degin adoon application isticmaalin qaabkaas ayaa loogu dhigaa adeegan dark mode. Adeega dark mode waxyaalo badan ayuu ka saacidayaa iftiinka badan ayuu ka yareynayaa cadaanka badan waa laga fiican yahay. Marka adeegan aad ayuu idin anfacayaa qofkii haysto mobilada Android 10. Waa version Android 10 qofkii haysto adeegan wuu furan karaa. Marka waa u jeedaa wixii dhan waa isbedeleen adeegii dhan waa isbedelay madow ayuu noqday. Marka qaabkaas ayaa loogu dhigaa haddaad u baahan tahay inaad ka dhigto Facebooka lightka ma waa Facebooka originalka oo ku yimaado ama Play Store aad ka helayso. Marka qaabkaas ayaa loogu dhigaa haddii aad u baahan tahay inaad ka dhigto Facebookkaaga madow ama dark mode qaabkii aan soo mala raac step umar waa wax easy ah. Mobilkaaga fiiri modelku uu yahay Android 10 hadduu yahay adeegan waa heli kartaa. 9 laakiin hadduu yahay Android 9 hadduu yahay laakiin adeegan waa ka xumaa ma heli kartid. Marka waa kaas asxaabta muuqaalkaas ayaan jeclahay inaan idin qaybsado. Haddii aad channelka ku cusubtiina soo dhawaada subscribe noo saara. Haddii aad muuqaalkan ka heshana like saar. Waxa inoo balan ah marka muuqaalka xigo insha Allah.